ciid wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada meel kasta waa joogtaan waxaan rabaa inaan idin la wadaago wararkii ugu dambeeyay dagaalada iyo duqeymo toos ah xalay ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose waan ogahay inay tahay maalin ciid balse waxaa la muhraan ah in la bogaadiyo lana dhiirigeliyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab iyadoo ay tahay nagama baajinayso inay isu gudbino wararkii ugu dambeeyay dagaalada iyo duqeymaha ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe xalay waxay dagaalada iyo duqeymo toos ah ka dhaceen gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan مساعد على الجذود دقمة البعض هالكاس ولو صور رمي إن ترى دجالي هنا يهرجوجيال كهذا على الشباب كترسن هالكاس لو بيكسده سيدو كانت حلقة قبل شوية الله هو سواء حكى عيد دقين وحنا على الشباب حلقة لو دقين دقمة أو دقلي هالكاسو دوام بقى على الشباب كسقناين ما دام مع المكور على الشباب هالكاس إلوري عن كوين دقمة أو دقلي بس نسيبونك وحنا على الشباب هالكاس حلقة دجالي دقيمة توصح كجفورية إيدك حق درك سوماليد يسحب عالمك هذا دقمة أو دقلي حكوسقون إيدك حق درك سوماليد sidoo kale waxaa saakay salaada ciidaha gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan lambar kontar kula dukuday ciidanka xoogga Soomaaliyeed iyo saraakiisha hogaaminayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo halkaas salaada ciidaha saaka kula oogay saraakiisha iyo ciidanka xoogga Soomaaliyeed isagoo halkaas ugu tagay dhiirigelin iyo bogaadin dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ra'iisul wasaaraha ayaa halkaas wuxuu ku jeediyay khudbad isagoo ciidanka xoogga Soomaaliyeed ku bogaadiyay kuna dhiirigeliyay difaaca har iyo haween ay u taagan yihiin inay difaacaan qarankooda sidoo kale xalay waxay duqeymo toos ah ka dhaceen gobolka bari gaar ahaan Caalamiskaad waxaa xalay halkaas lagu beegsaday xubno ka tirsan kooxda Daacish oo halkaas ku dhuumaaleysanayay duqeyntan xalay ka dhacday guud ahaan dalka gaar ahaan Caalamiskaad iyo gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose ayaa imaanaysa kadib markii dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab iyo Daacish ay ku heshiiyeen inay u midoobaan dagaalka ay kula jiraan dowladda federaalka iyo maamulka Puntland balse heshiiskaasi markuu soo baxay kadib waxaa xalay duqeymo toos ah ka dhaceen gobolka bari Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe waxaana halkaas lagu naafiyay dagaalyahano ka tirsan kooxda Al-Shabaab iyo kooxda Daacish iyo sidoo kale waxaa lagu beegsaday duqeynta horjoogayaal hogaaminayay kooxaha Daacish iyo Al-Shabaab sidoo kale gobolka Shabeellaha Dhexe xalay waxaa ka dhacay duqeymo toos ah ay fuliyeen saaxiibada caalamka duqeyntan ayaa lagu soo waramayaa inay ka dhacday masaajid Al-Guduud iyo degmada Ceelbacd degmada Ceelbacd ayaa xalay waxaa lagu soo waramayaa in lagu beegsaday tiro dagaalyahano iyo horjoogayaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab kadib markii laga war helay in ay rabeen inay weerar ku soo qaadaan fariisamaha ay ku leeyihiin ciidanka xoogga Soomaaliyeed gobolada Shabeellaha Dhexe balse nasiib wanaag ciidanka xoogga Soomaaliyeed oo ka war helay saaxiibada caalamka ayaa halkaas duqeyno ka fuliyay ugu dambeynna waxaa halkaas lagu naafiyay kooxdii rabtay inay weerar ku soo qaadaan fariisamaha ciidanka ay ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan meelo si cayiman oo kooxda Al-Shabaab ay rabeen inay weerar ku qaadaan sida ay noo xaqiijiyeen saraakiisha amniga ee ku sugan gobolka Shabeellaha Dhexe guud ahaan dalka waxaa ka socda dagaal ka dhinaca kooxda Al-Shabaab inkastoo kooxda Al-Shabaab maalmihii la soo dhaafay ay xoojisay dagaalada iyo weerarada joogtada ah gaadmada ay ku soo qaadaan fariisimaha ciidanka ay ku leeyihiin gobolada dalka gaar ahaan Shabeellaha Dhexe Shabeellaha Hoose Al-Shabaab bishii in weydaaratay ee Ramadaan Ilaahay hanaga aqbala amaasheeda waxay weeraro joogto ah gaadmo ay ku qaadeen fariisimaha ciidanka ay ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Dhexe taasoo Al-Shabaab u suuragelisay in ay la wareegaan laba degmo gacan ku hayntooda balse ugu dambeyn ciidanka xoogga Soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamka ay halkaas ka saaray waxaan hadda deegaanadaasi ku sugan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed si la mid ah Al-Shabaab waxay weerar gaadmaha ku soo qaadeen qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan degmada masaajid Al-Guduud taasoo Al-Shabaab u suuragashay in sidoo kale ay la wareegaan gacan ku haynta degmada masaajid Al-Guduud balse ugu dambeyn waxaa halkaas ka saaray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wax ka yar saacado waxaan hadda masaajid Al-Guduud ka arimanaya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed haddii intaan la soo gaartay waxaan ka codsanayaa inaad subscribe channelka like-na dhaasiina share gareysid si aan u helno saaxiibo adigoo kaleeta ah ka mid noqo safirkeena 2000 subscribe aad iyo aad u mahadsantahay